أنا كلي هذا الجبر كل شيء حبرشدنا وسوء هذا الله أي محد قصقنا تي galmudug sanadihii la soo dhaafay deegaanada miyiga ah iyo degmooyinka galmudug waxa kor u soo kacaya kobca waxbarashada gabdhaha ayaana si ka duwan sidii hore ugu soo biiraya goobaha waxbarashada waxaana deegaano badan oo miyiga fog ah laga hirgeliyay iskuulo ku taya ah kuwa degmooyinka dhammaan degmooyinka galmudug iyo deegaanada hoostago waxa xilligan ka socda ololaha wacyigelinta waxbarashada gaar ahaan gabdhaha si loo dhiirigeliyo kororka gabdhaha ee goobaha waxbarashada ayayna wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudug wada wacyigelin si kor loogu sii qaado tirada gabdhaha ee dugsiyada aada agaasimaha waxbarashada degmada Gurceel Xasan Cabdullaahi Warsame iyo kormeeraha waxbarashada ee degmada Maxamed Xuseen Yuusuf ayaana booqasho ku tagay qaar kamid ah iskuulada degmada Gurceel iyo deegaanada hoostaga ujeedka ayaan ahaa kor u qaadista waxbarashada gabdhaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudug ayaana dadaalinaysa in sanadkan 2024-2025 la kordhiyo tirada gabdhaha dugsiyada aada agaasime Xasan Cabdullaahi iyo kormeere Maxamed Xuseen maamulaha iskuulka Almaamuun ee degmada Gurceel Cabdulqaadir Jaamac Tarab ayaana si wada jir ah ugu dhiirigeliyay waxbarashada ardada gaar ahaan gabdhaha waaweyn ku waxbarashada dhib kuma aha guriyaha inaad wax ka qabato waxbarashada dhib kuma aha inaad guursato waxbarashada dhib kuma aha waxa la idinka doonayaa inaad waxbarashada iyo maarta xiisadaha inaadnan adigu ka niyad jabin adinku aanan nicin adikees idinka dhaadhicin adinku aynaan ka tagin waxa loo diyaarsan yahay oo wasaaraddu ay xooga saaraysaa inay ku dhiirigeliso gabdhaha si gooniya haddii duruufaha qaaska la soo darsaan inay ka caawiyaan in maaragtay ay waxbarashada aysan ka harin in gabdhaha waxbarashadooda ay aad u sarreyso xaqiiq waaye fasalka markay dhigato 40 arday 40kaas arday ay yihiin 20 gabdhood iyo 20 wiil kaalimaha ugu horeeya inta badan markaan ka hadlayo ma in wiilashu wax baran maaha inta badan laakiin gabdhaha horeeya wiilashii gabdhaha horeeya inay kala horeeyaan waxa keenaya waxa waaye waqtiga akhriska la geliyay casharada guurku waa wax fiican laakiin gabadha waxa la rabaa inay qorshaysato waqtiga ay wax baran lahayd waqtiga mustaqbalkeeda ay dhisi lahayd inay kala soocataa la rabaa waxa kale oo jira culeysyo badan inay gabdhaha xaafadaha ka haystaan guriyaha ka haystaan waxaan rabnaa waalidiintu inay ku baraarugaan gabdhaha guriyaha jooga oo aan waxbarashada joogin in la keeno kuwa wax bartana in la dhiirigeliyo sida hadeerba ay guulaha uga gaareen waxbarashada oo ay ugu horeeyaan dugsiyada kaalimaha ardada gasha waxa ugu horeeya gabdhaha waxyaabaha ku dhiirigeliyana waxa kamida wiilasha way ka naxariis badan yihiin xogaa way ka akhlaaq fiican yihiin way ka dadaal badan yihiin Axmed Cismaan oo kamid ah waalidiinta ubadkooda wax ka bartaan iskuulka Almaamuun ee degmada Gurceel ayaa wasaaradda ku amaanay dhiirigelinta ay gabdhaha siinayaan wasaaradda waxbarashada galmudug oo door muhiim ah ka qaadatay waxbarashada jihaysay meel fiican gaarsiisay waxaan rabaa inaan bogaadiyo waxaan rabaa arday gabar ahaaw ama se wiil ahaabe gabareey waalidka baa kugu soo tabcay macallinkaagii baa kugu soo tabcay waxa lagu siiyay waqti yowsan waqtigaaga burinin ka faa'iideysanin wiil jaaga xiiran hadduu rabo yowsan lahaanin jeege qorshahaaga waxbarasho iyo fishinkaaga gaar ayaan Cabdullaahi Cabdi iyo Miski Maxamed Salaad oo kamid ah ardada dhigata iskuulka Almaamuun ee degmada Gurceel ayaa aaminsan in gabdhuhu hawsha guriga iyo waxbarashada isku keeni karaan magacaygu yahay ayaan Cabdullaahi Cabdi waxaan dhigtaa iskoolka Almaamuun Al-Azhari waxaan ahay fasalka form 4 waxaan ka hadlayaa barnaamijka maanta ka hadlayo wuxuu yahay in gabdhuhu wax bartaan dan gabdhuhu wax waa baran karaan waqtina way haystaan waayo adigoo hooyo wax baran kartaa adigoo gabar oo xaafadda jooga wax baran kartaa waayo hawsha iyo waxbarashada wax hada u dhiiran tahay niyada aad ku haysan inaad qabato waa qaban kartaa sida caadiga laakiin hadana niyada u haynin yani hawsha aad rabto inaad qabato hadana niyadaadan ku haynin qalbigaadan ku haynin ma qaban kartid gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta joogan waxaan ku baraarujinayaa inay wax bartaan magacaygu waa Miski Maxamed Salaad oo dhigata Almaamuun Al-Azhari waxaan dhigtaa galaaska form 3 waxaan nahay annaga gabdhaadaan gabdhanahay waxaan jecelnahay markasta inaan wax barano inaan bulshadeena wax u qabanno dalkeena wax u qabanno diinteena wax u qabanno
soo waxbarashada saayid ayaan u jecelnahay marka anaga waxbarashada gabdhaha waxaan ku dhiirigelin lahaa inay waxbarashada adkeeyaan inay si fiican wax u bartaan sababtoo ah biri waa hooyooyinka mustaqbalka waa hooyooyinka madaxda soo saari lahaa waa hooyooyinka macallimiinta soo saari lahaa nasteexo Usmaan Xaashi Fahmo Cali Guuleed Xaliima Muuse Nuuriye waa hooyooyin ubadkooda wax ka bartaan iskuul ku yaala deegaanka Ceelbaraf degmada Gurceel hoostaga waxa ay qabaan in caruurta oo qayb wax la baray tahay qalad weyn oo ay kala jeedaan in gabdhaha shaqada guriga oo kaliya lagu koobo halka wiilashan waxbarashada loo diro waxbarashadeedu waxba ma gabar wax baratay bulsho wax baratay walkiiba 9 waa mahadsan hooyooyinkooda gabdhahooda wax bara wiilasha gabdhaha u sameeyeen yihiin ilaahay abuur uma kala bedel gabar waxa ku yeey baran wiil waxa barta ma dhihin marka xaqa ku socdo qofkii aan cunugeeda wax baray waalidiinta waxaan u baaqayaa gabdhaha ee saxuusha ku hakran gabdhaha wax baraan gabdhooda wax bartaan iga anfacaya ala gabdhidu iskuulka wayada gelinka hor wayada dugsiga yada hawsha guriga qabataa iskuulka way dhigataa ma sha Allah kaalin wanaagsan oo ay gashay gabar wax barata oo bulsho wax barata ilmaheedii anfacaysa ayadii anfacaysa gabdhaha iskuulada ha tirtaan quraamada maalinta waxa waaye ilmahay waa fas dugsi hoose dhexe gabdha iyo wiilal dugsi hoose dhexe ay ku jiraan xaalinta yar aan dhahay hadda u galay lixaad waa ilmahaygu waxaan ku mahad celinaynaa aan ku baraarujinaynaa dadka islaamka iyo culimadiinka dadka deegaanka in ilmaha wax bartaan ku soo dhawaadaan gabdhaha waxbarashada shaqada iyo guriga iyo meel kale oo dhan waa isku aftaan waxbarashadoodana waa u rabaa inay tayo fiican meel fiican ku gaaraan inay maxaa jaamacada ku dhigtaan inay heer nagu gaarsiiyaan hadda waana ilaahay inna siiyay aan mahad celinaynaa Muna Cabdullaahi Axmed waxa iskuulka ka soo aadaa deegaan 5 kiiloomitir u jira deegaanka Ceelbaraf mana jirto wax caqabad ah ka hor imaada sida ay sheegtay waxa inuu mahad celiyay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Galmudug oo gurigeeda uu keentay waxbarasho aniga ka imaad meel 5 kiiloomitir u jirta tuulada Ceelbaraf baa ku faraxsanahay waxbarashadeeda waxaan u mahad celiyay wasaaradda waxbarashada Galmudug ani kaliya hooyaday gabar ka dhashay waxbarashadana waa soo aadaa alla ay mahad ugu sugnaatay hooyooyinka waxaan ku baraarujinaa in gabdhaha soo diraan waxbarashada Maxamed Cumar Suuriyaan Galmudug TV Gurceel